howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen hay'adaha amniga ayaa horseeday in la soo qabto 26 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen shabakad si nidaamsan u shaqeynaya oo si sharci darro ah ku sameyn jirtay dukumeentiyada aqoonsiga dawladda oo ay ku jiraan kaarka aqoonsiga qaranka, baasaboorka, shahaadooyinka dhalashada iyo kaarka dadka ajaanibta ah. howlgalka oo socday 2 maalmood ayaa lagu bartilmaameeyay koox ay ku jiraan shaqaale wasaaradeed oo kala duwan, chiefaf ama gudoomiye xaafadeedyo iyo dalaaliin ka macaashi jiray dardargelinta dukumeentiyada iyadoo oo lagu xadgudbayo nidaamka rasmiga ah. warbixin ka soo baxay waaxda dambi baarista ee DCI-da ayaa muujisay in kooxdan ay ku takrifaleen nidaamyada dawladda. intii howlgalka uu socday, booliiska waxay guryaha eedeysanayaashan ka soo qabteen hanti dawladeed. haddaba eedeysanayaashan waxa ay ka kala shaqeynayeen xaafadda Islii, si guud Kamakunji, Embakasi iyo xafiisyo dawladda dhexe oo Nairobi ku yaala. qaar ka mid ah magacyadooda haddii aan dul maro: Mawlid Yusuf Dige, Maxamed Isaaq Geedow, Cabdirasaaq Cusmaan Raage, Alfred Opia Ayawai, Cabdirasaaq Cabdi, Cabdirashiid Maxamed Cali, Festus Bahati Chai, Cabdirasaaq Bashir Faarax, Samatar Cusmaan Roobne, Fuad Bole Maxamed, Geoffrey Makoro Mutanya, Joseph Mwendwa Munyidhia, Abdulqaadir Maxamed Daahir, Berik Koriria, David Korir, Titus Mwaganya Nthenge, Yahya Daud Manur, Isaaq Abdow Maxamed, Nelson Katana Kazungu, Abdullahi Abdi Khamisi iyo Abdurrahman Roba Guyo iyo Daniel Munywoki Kavua.